ardayda culumta kala duwan ka barata jaamacadda Plasma faraceeda Kismaayo oo u diyaar garoobayo bilaha fasaxa ee ardaydu galaan sanad walba ayaa shalay deegaanada loo dalxiis tago ee goob weyn iyo intooy u tagay dalxiis iyo inay wacyigelin u sameeyaan bulshada degan deegaanadaasi maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Plasma oo ay horkacayaan ardayda kulliyadaha kala duwan ka barata jaamacadda ayaa deegaanka iyo intooy bulshada ku dhaqan u sameeyay wacyigelin ku aadan kubcinta waxbarashada ardayda deegaanadaasi iyagoona maamulka jaamacadda Plasma gaarsiiyay buugaag iyo qalimaan iskuulka deegaanka Yontooy ardayda culumta kala duwan ka barata jaamacadda Plasma faraceeda Kismaayo ayaa intii ay ku guda jireen dalxiiskooda waxay deegaanka Yontooy ku sameeyeen tartamada orodka iyo xarig jiidka halkaas oo ay boqolaal qof u soo daawasho tageen حسين عبد السلام آذن مدح شقة إيا شقالها جامعة Plasma faraceeda Kismaayo ayaa Jubbaland TV uga warramay safarkooda iyo waxa uu ku qotomo halkan maanta waxaan u imaanay dalxiiskaas oo jaamacaddu sanad walba dabiyaaqadiisa ardayda dalxiis halkan looga keenay Yontooy ujeedku waxay ahayd maadaama semester dhan ardaydu hal sano wax baranayeen in mataqaana loogu farxiyo oo munaasabadani lagu soo xiro semesterka maadaama imtixaankii ay galeen hadda waxaa loo soo waday dalxiiskaas oo qaadanay maanta oo taariikhda ay ku aastaysneed 26 waxaan ugu sii dabaaldegaynaa marka anagu ugu faa'iideysanayna jaaniskani oo muddo la soo qabanqaabinay sanada ee munaasabadii oo ku aadanay 26 June marka ma sha Allah intaasaan u imaanay waxaan ku faraxsanahay anagii ardaydeena inaan halkaan imaano ujeedkan wuxuu ahaa in mataqaana ardayda halkaan la keeno Xasan Yuusuf Maxamed Shafadiyare raadiyaha TV ga dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland magaalada Kismaayo